kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba ku soo dhawaada xubinta isboortiska ee telefishinka caalamiga SBTV. qodobada ciyaaraha kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Karim Benzema oo aaminsan in Ronaldo uu ka fiican yahay Zidane. maxay tahay sababta? Paul Pogba oo ku waramay hadal rajo geliyay taageerayaasha kooxda Manchester United iyo kooxda Real Madrid oo ku soo biirtay loolanka loogu jiro daafaca loogu doonaysta badan yahay suuqa kala iibsiga qaaradda Yurub. maalinimadu waa Isniin taariikhdu miilaadiga ku beegan tahay 30 bisha Maars sanadka 2020. aynu ku bilownay Karim Benzema oo aaminsan in Ronaldo uu ka fiican yahay Zidane. waryaanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee xulka qaranka France Karim Benzema ayaa sheegay in reer Brazil Ronaldo Dalimo uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican isaga ahaan kadib markii uu tilmaamay inuu sabab buuxda u ahaa jaceylka uu u qaaday kubadda cagta markii uu yaraa. Karim Benzema iyo halyeyga reer Brazil Ronaldo Dalimo ayaa waxa ay qaab muuqaal ahaan ugu wada sheekaysteen baraha bulshada gaar ahaan Instagram-ka. waxa uuna Karim u sheegay halyeyga reer Brazil, waxaan joogaa Madrid, qoyskaygu waa ay fiican yihiin laakiin karantiil ayaanu ku wada jirnaa. waxaan u sheegi jiray taageerayaasha inaan jeclahay kubadda cagta markii aan kugu arkay TV-ga aniga ahaan waxaa tahay kan ugu fiican abid. waxa ay sidoo kale i weydiiyeen Zidane, laakiin waxaan u sheegay inaad adigu tahay kan ugu wanaagsan. si kastaba ha noqotay halyeyada Ronaldo Dalimo iyo Zinedine Zidane ayaa waxa ay si wada jir uga soo wada ciyaareen kooxda kubadda cagta Real Madrid intii u dhaxaysay sanadihii 2002 ilaa 2006 waxayna kula guuleysteen Los Blancos-ka horyaalka Spain La Liga xilli ciyaareedkii 2002-2003 iyo Copa del Rey oo ay kula guuleysteen xilli ciyaareedkii 2003. dhanka kale Paul Pogba oo ku waramay hadal rajo geliyay taageerayaasha kooxda Manchester United inkastoo horyaalka Premier League iyo guud ahaan ciyaaraha kala duwan ee dunida ay hakad ku jiraan kadib faafidda caabuqa coronavirus awadii. ciyaartoyda kubadda cagta ayaa baraha bulshada saaxiib dhow kula noqday taageerayaashooda. laacibka Manchester United Paul Pogba ayaa tilmaamay in kooxdiisu ay doonayso inay ciyaaraha ku soo laabato sidoo kalena uu koob kula guuleysto Red Devils. Pogba oo lala xiriirinayay ka tagitaanka Old Trafford iyo ku laabanshiyaha Juventus ama u hayaamida Real Madrid ayaa fariin qurux badan u diray taageerayaasha Manchester United. guriga jooga nabad ahaada ayuu Paul Pogba ku yiri wicitaan muuqaala oo uu kula wadaagay Jesse Lingard si toos ah looga daawanayay bogga rasmiga ah ee kooxda Manchester United. waxaana hadalkiisa uu sii raaciyay sii wada taageeridiina United, waxaan ku rajaynahay in wax walba ay hagaagi doonaan ciyaarahana aan dib ugu soo laaban doono. waxaan rajaynayaa inaan idin tusno sida aan diyaar ugu nahay in aan doonayno inaan ku soo laabano wadada ku guuleysiga koobka. isla xiriira nabad ahaada, annaga mar dhow garoonka ayaan ku soo laabanaynaa ayuu yiri Paul Pogba. qodobka ugu dambeeya xubinta isboortiga ee telefishinka caalamiga SBTV ayaa noqonaya kooxda Real Madrid oo ku soo biirtay loolanka loogu jiro daafaca loogu doonis badan yahay suuqa kala iibsiga ee qaaradda Yurub. kooxda Real Madrid ayaa u diyaar garowday inay dagaal dhanka suuqa ah la gasho kooxaha Arsenal, Barcelona iyo Bayern Munich si ay uga dulqaado xagaagan saxiixa daafaca Red Blue Lesbian ee Dayot Upamecano. warsidaha caanka ah ee ka soo baxa gudaha dalka Spain ayaa sheegay in Los Blancos-ka ay noqotay kooxdii ugu dambeysay ee ka fikirtay inay bixiso lacagta heshiiska xiddigan lagu jibin karo oo gaaraysa 55 milyan oo gini. si kastaba ha noqotee laacibka reer France ayaa diyaar ah in uu warqad codsi ah u diro kooxda si loo iibiyo haddii ay dalabka u imaanaya ay gaari waayaan halkii ay rabtay kooxda Lisbon. 22 sano jirkan daafaca dhexe kaga ciyaara ayaa kooxdiisa ka caawiyay inay shabaqa difaacdaan 9 jeer kadib 29 kulan oo ay ciyaareen xilli ciyaareedkan, taasi oo saldhig u ah in kooxaha ugu awooda badan qaaradda Yurub ay xiddigani baadigobaan. guud ahaan waxaan intaasi ku soo gaabinaynaa xubintii isboortiska ee telefishinka caalamiga SBTV. diyaarintii soo jeedintu waa anigu Jamuni. tan iyo xubintan mid lacayna nabadgelyo ammaan Allah.